Nicholas James oo loo yaqaan Nick Vujicic waxa uu dhashay 4 Diseembar 1982 wuxuuna ku dhashay Melbourne ee dalka Australia. inkastoo markii uu Nick dhashay uu ahaa ilmo 100% caafimaad qaba, haddana Nick waxa uu dhashay asagoo ah gacmo la'aan iyo lugo la'aan. Tani waxay afkalaqaad ku noqotay dhakhtarkii iyo waalidkii dhalayba. inkastoo waalidiinta Nick uu qaadan waa ku dhacay, haddana waa aqbaleen in Ilaahay siiyo ilmo sidaan ah. Nick waa uu koray asagoo caafimaadkiisuna taam yahay. Nick gobolka uu deganaa mamnuuc ayay ka ahayd in carruurta oo lixaadka leh ay iskuulada aadaan, balse Nick wuxuu noqday ilmihii ugu horeeyay ee naafo ah haddana aada iskuul. inkasta oo Nick asagoo naafo ah ardaynimo loo oggolaaday, haddana Nick wuxuu kala kulmay iskuulkii dhibaatooyin badan ay soo gaarsiin jireen ardayda ay iskuulka ahaayeen. Nick si nafsi ah si jir ahaaneedba waa loo dhaawacay, taas oo sababtay inuu isku dayo inuu nafta isdhaafiyo markii uu jiray 9 sano. Nick naafinimadiisu waxay sababtay in niyad badan oo ka qaado noloshiisa. wuxuu naftiisa u sheegay in noloshu u suurtoobin. Nick in uu noolaan karo waxaa tustay hooyadii oo mar walba ahayd qof dhiirigelisa. hooyadii waxay tusi jirtay dad lixaad leh haddana nolosha wajahay. ugu dambeyntii markuu Nick weynaaday, wuxuu noqday qof ku qanacsan 100% noloshiisa. wuxuuna naftiisa u sheegay inuu noolaan karo, uuna wax qabsan karo sida dadka lixaadkoodu dhammaystiran yihiin oo kale. Nick wuxuu wax ku qoraa 2 suul oo yaryar oo kaga yaala lugta bidix. sidoo kale kombiyuutarka wuu isticmaali karaa, wuxuuna qori karaa 45 eray daqiiqadiiba. sidoo kale Nick wuxuu ciyaari karaa kubadda tenniska, sidoo kalena taleefanka wuu ka jawaabi karaa. I'm coming! Ready? Hey, is that cool? Awesome. sidoo kale ciyaarta golofka ayuu ciyaari karaa, wuuna dabaalan karaa. Nick wuxuu taageeraa weliba uu jecel yahay David Beckham, wuxuuna isku dayaa inuu banooniga u karooso sida David Beckham. taa wada la soco Nick lugama lahan. Now, I just want to show everybody how far I can actually boot this thing. I'm a big fan of David Beckham. I love David Beckham. I love it how he curves that ball. And so I'm practicing, you know what I mean? So I'm just going to maybe just to get you to move back. Keep on moving back. Keep on back, 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 back. Keep on back, 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 back. I'm joking, bro. I can't kick that far. Come forward. It's all good. I'm just joking. Right there is good. Right there is good. Now, that's a pretty big kick, so I'm going to take a little bit of a run up here. So, let me just... 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 Woo! I was checking, it's so good. I just wanted to see if I get you scared a little bit. All right, here we go. Are you ready, mate? Now, when you get this ball, don't throw it back because I can't catch. You understand me? All right, you ready? Here we go. When you get this ball, just come up here on stage. Is that cool? Ready? 1, 2. Look at that. Jump up, mate, on this side. Beautiful. xilliyadii uu waxbarashada ku jiray Nick wuxuu ahaa qof aad u firfircoon. wuxuu la shaqeeyay ururo badan oo arrimaha bulshada ka shaqeeya, gaar ahaan naafada. 17 jir markii uu ahaa wuxuu bilaabay inuu dadka la hadlo, isla markaana dhiirigeliyo. waxa kale oo Nick aas-aasay ururkiisa oo uu ku magac daray nolol bilaa gacmo ah. Nick waxa uu ka qalin jabiyay jaamacadda Garfield
sanadkii 2003 wuxuuna ku takhasusay ganacsiga. Markii uu jiray da'da 19, Nick adduunyada ayuu u socdaalay asagoo la hadlaya isla markaana dhiirigelinaya malaayiin qof oo iskugu jira arday, macallimiin, ganacsato iyo dad rayid ah. meelaha uu khudbadaha ka jeedinayo waxaa yimaado 10,000 oo qof, kuwaas oo aad u daneynaya dhageysiga hadalkiisa. Nick maanta waa dhiirigeliye adduunka oo dhan laga yaqaan, waa qoraa, sidoo kale waa muusigyahan. So what it is basically, it's a pad, right? And there's like 16 buttons, and so each button represents a sound, right? So I'm not pressing play or anything like that, right? You see my foot? All right, it's like serious, okay? Ah, you like that? Well then, so that's sort of more like your rocking, you know, sort of pop, whatever. But then you got the Can we have some more volume, please? Give me some juice, right? All right, so here we go, right? So it's like, you like that? That would be really cool if I could get this on my wheelchair and play it while I'm driving, and get some techno going. Like, here we go. 1, 2, 3, 4. There you go, you like that? sidoo kale waa jilaa iyo qof ka shaqeeya arrimaha bulshada. waxyaabaha uu jecel yahay waxaa ka mid ah kalluumeysiga, sawir qaadida iyo dabaasha. Nick waxyaabaha la yaabka leh uu leeyahay waxaa ka mid ah in uu aad ugu faraxsan yahay abuurkiisa, inkastoo ay jiraan dad lixaadkoodu dhammaystiran yihiin haddana isku faraxsaneen. sidoo kale wuxuu rumaysan yahay in ay waxba ka dhinneen, waana nin rajadiisa nololeed aad u sareyso. 2005 Nick waxa uu u sharaxnaa abaalmarinta Yankee Australian of the Year. 2008 Nick waxay kulmeen Kenya, taas oo noqotay markii dambe xaaskiisa. Kenya iyo Nick waxay isku hayaan 2 caruur ah. waxa aan ahay qof lixaad la, haa gacmo iyo lugama lihi, laakiin mushkilad ma aha tani, waayo muhiimadu ma ahan sida uu yahay muuqaalkayga, waa qofka aan ahay iyo waxa aan qaban karo. waa mid ka mid ah oraahda Nick. dunidan horumarsan waxaa lagu gaaray dadaal uu qof bini aadam uu sameeyay. haddii dadaal la sameeyay lama gaareen. daawada taariikh nololeedka Nicholas James oo loo yaqaan Nick Vujicic waxaan ila socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdicasiis Madara. amaana Allah, sidaas iyo nabadgelyo.